degmada Awbare ee gobolka Faafan oo kamid ah degmooyinka ugu faca weyn deegaanka Soomaalida ayaa ka soo koob aqoonta waxay caan ku tahay wax soo saarka kheyraadka kala duwan ee dalagyada beeraha. haddaba magaalooyinka Lafaciise, Xergeel iyo Jaara ayaa kamid ah goobaha aan ku soo aragnay wax soo saar beero qamadi ah oo si fiican u baxay. rajo fiican laga qabo in bulshadu tabiceeda ay ka faa'iido. hadda wada qamadiga quruxdiisa soo eegyahay oo u wada dhalay qamadigu galeedii way dhashay haruurkii uu dhalay. qorshahayaga guud ee sanadkan 2017 wuxuu ahaa 870,000 oo hektar inaan ku beerno dalagyada kala duwan. ha u badnaadaan qabadanku. waxaa kaloo dib looga soo daray wax soo saarka dheeriga ah 9,000 oo hektar 96,000 oo hektar ayaa noo qorshaysnaa inaan sanadkan maxaan ku raraa 2017 aan beerno dhul inta gaari inaan beerno. waxaan ku guuleysanay oo noo hirgelay inaan beerno kii 18,000 ahaa waxaan beernay 96,000 kii 9,000 ahaana waxaan beernay 10,152 hektar ee ku guuleysanay beernay. yieldiga aan macnaha ama dalaga aan rajeynayna inuu ka soo go'o waxa weeyaan 2,756,000 oo keental. xagay ka helaan bulshadu siirka kala duwan ee wax soo saarka kheyraadka beeraha muxuu ka caawiyaa xafiiska beeruhu. waxaan ugu mahadnaqaynaa dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo noo keenay siirka xilligii loogu talagalay uu noo keenay aan beernay dadkuna maanta ay aad u xoogsanayaan oo maanta dadkii reeraha fadhiyo jiray ay mataqaanaa ay beerihii tabcanayaan oo ay ka shaqaysanayaan oo shaqo xoog ay ka socdaan. waxa weeye uu baxay qabandigii 10 qof inta la isku xidho ayaa beeraha laga shaqeynayaa. annaguna kulli waan ku goorinaa oo wacyigelin baan dhaxwadnaa waana naga aqbaleen si fiican baan loo shaqaystaa. waxa weeye Ilaahay baa mahad iska leh roobkana siiyay qabandigii noo bixiyay alxamdulillah rabbil caalamiin baan ku jirnaa. waxa weeye Ilaahay baa mahad iska leh. siirka sanadka soo gaaray xafiiska beeraha ee degmada Awbare ka soo gaaray qabalaha Waraabare waxa ala 150 kintaal 250 kintaal oo la kala siiyay loo kala qaybiyay mashaariic iskaashatooyin iyo kuwa shaqsiyaad saasay loo kala siiyay dhammaan beerihii tooda badan sidana u badan yihiin. hadda beertana laga joogo iyaga nin kale markuu qoday wuxuu ku bixiyay juhdi badan buu galiyay hadana wuxuu ka ilaaliyay siirkii iyo geedii buu ka haramay. qamadigu markuu dhulka ka soo biqlay oo burka gaaray iyo la harameeyay wadana wada arkay saacad xabad roox caleena ugu dhaxtaalay saas oo loo dalgay beeraha kale qamaduguna saas oo yaayno. marka guud ahaan haddii aan si guud u dhigo degmadaydan ama degmadan Awbare dhulka la beeri karo 287,000 oo hektar ilaa 300,000 oo hektar baa la beeri karaa oo haddii maanta aan inputka u helno la beeri karaa. sanadkii dhawaa markaa iyo sanadkii ka horeeyay 2015 2016 dalagii la beeray roob la'aan buu aduu u ba'ay oo wax badan kama soo goyn. marka darteed baa macnaha sanadkan qorshahayagu uu noqday maxaan ku dhahdaa 87,000 loogu daray 9,000 oo 100 iyo maxaan ku dhahdaa 96,000 hektar aan u beernay. xafiiskuna aad si qurux badan buu noola shaqeeyaa oo waxa weeye kolba wixii aan u baahnay seed hadday noqoto qamadiga galeyda shumburada laftigeeda xafiiska iid kullu uu soo siiyaa oo waxay kulli si fiican buu noola shaqeeyaa. dadkuna maanta tabacoog aad bay maanta uga shaqaysanayaan. goorma ayaa la bilaabay beerashada qamadiga ee dhulkaasi. qamadiga taariikhda inta aan soo beerano taariikhda degmada Awbare wuxuu soo galay 2011 gaar ahaan sayidka Lafaciise 2011 mashaariicda caadiga laga bilaabay markii hore daagdaag yaryani waxoogaa yarqataa lagu bilaabay gacanta lagu goyn jiray markaa hore gacanta ayaa lagu goyn jiray waqtiga gacanta lagu goyn jiray dhowr sano markii loola cadimaa 2011 waxa noo timid cagabtan koonfur reegaysa
waxay noqotay sanadka ama sanadka intii ka dambeysay oo dhan in beeraha laga wada qodo qamadiga. inta qabadinka ah oo qorsheygu ahaa 70,000 oo hektar ahaa 70,000 hektar ahaa qorshaha noo hirgalay ee aan beernay waxa weeyaan maxaan ku raahdaa 79,700 oo hektar baan beerno qabadin u khaas ah oo aan ku kala beernay qabalayada ku wanaagsan qabadinka wax soo saarka qabadinka oo u badan galbeedka walow bariga laftiisa eega laga bilaabay. ilaa hadda maxaa faa'iido ay bulshadu ka heshay tabiiciida dhinaca beeraha gaar ahaan qamandiga xagga kororka dhaqaalaha iyo dadka aad buu uga kabay muddada aan beeranay waa 15 sano 15 qabalaya 15 sano laga beeray la facisay wax yar waxa laga gaaray qof kasta oo miyigan ka beerta qamandiga oo lahaa yahay magaalooyinka kala ka dhisto joogo intuu bootay geebso kala oo ka dhisto waxaan nahay labadan sano ugu dambeysay 2014 iyo 2015 maanta oo 2016 dabeeqadeedii siirka la bixiyeen insha Allah waxaan rajaynaynaa sidii hore si ka fiican inay ku soo noqoto maadaama oo si midhaha qamandiga ee dawladdu bixisay si wanaagsan loo bixiyay roobashuna sanadkii hore ay ka faraq badan yihiin nidaamka maarayneed ee loo maareeyay xafiiska beeraha ee degmada Awbarha uu maareeyay ay ka duwan tahay sidii hore. maxaa uga qorshaysan xafiiska beeraha inuu ku ballaariyo bulshada inteeda kale ka faa'iideysiga beerashada qamandiga si guud laakiin sanadkan maadaama Ilaahay roobkiina siiyay meelo badan ay beeruhu fiican yihiin oo dalag badan aan rajaynayna inay ka soo go'aan 2,700,000 oo kun oo keenta la ka soo go'aan rajaynayno sanadka dambe waxaanu markaa qorshaha hadii alla yiraahdo aan rabnaa inaan gaarsiino ilaa bariga aan gaarsiino oo qorshaha iyaga dhulka la beeri karo ilaa 80% sanadka dambe dhulka beeristo aan gaarsiino khaasatan dhirta firileyda ha u badnaadaan qabadinku ayaa noo qorshaysan. laakiin waxaan ka codsanaynaa deegaanka dawladda xilliga la goynaya beeraha in lagu soo caawiyo cagafyada beeraha goynaya si mataqaanaa dalaggu dadku hal mar bay wada beertaan hal marna waa la wada goosta si dadku mataqaanaa xilligan la goynayo cagafyo badan loogu keeno kulley yaan codsanaynaa. sanadkan waxyaabaha caqabada kaliya ta caqabada ay bulshadu hadda jeer irtabasa wax weeyaan qabadinka marka la beero waxyaabaha hadda jeer ka hor yimaado wax weeyaan cagafta beeraha goysa oo qiimaheegu sareeyo iyada lafteeduna yar oo deegaanka ku yar hadii la yiraahdo marka cagaftaas hadii caqabada xagga cagaftaas oo kale hadii aan xal u helno qabadinku uu soconaya xuduudda ilaa meel buu gaari doonaa oo uu socon doonaa.